سميحة قال لها أنا قرني شن عنق وذا قول بكادر بتي وكيلن سوا سميحة حتى ونجعل هاي قف شن عروقة عروقة كفير كلام سوا قف شن عروقة أروز دلت عروقة كفير سوا والله ورت ما شاء الله يقرب بدن تمرك كواد مرك لباد وقرود يوقف هذاس وقرود يوقف أي صاحب سلو صاحب عدوه أوكي سماحة قال له وقرر سوا يا ولا سماحة وقرر سوا سميح وقري قورة تيك توك عنك أيوة شن عنق وذا بحكادر بتي قول برسله ها وقرسن لها سبب دي قور سومالية وشن عنق وضعها دي وكدو عيسن لها صح المهدة يعرضتها ولو كرين لها صح دي وكا واساس ما وحكا لا جري وقرسله ما لها وقرسن لها ما هنا لقوه يروح ريح لها عطا نيو جلسنت هذه محيطها أي هذا ما أي صاحب سلو واندوه يا سعد أوكي شو أشوف كذي إذا ندو كفير ما شاء الله سؤالني ويدي كرت أوكي سماحة قال له وقرر سوا سميحة قال إيدي أنا قرده أوكي سماحة قال شن عنق وذا تقول هدي كاتل بالله مقرسله ما مقرس لهن مقرسله وصوبتان كقرس دفن وقفوا عدنا بورو وشان أنا بورو والله أنت ما يسافر كذا يا ما دام أفهم ما أنا أقول أنت يا تمي سافر كذا ما الرئيس سامك إنك فسر هذا ما ولي كشل دنيا ملا وقتها عليه ما قول سلام عليه مقرس دفن وصوبت ما الرئيس قف بورو وعدنا شان أنا بورو ما الرئيس ما قاصنا يا هذا ما است إيه ما استطاع صاحب سلوك ودوه يبو أوكي سماحة قال له وقرر سما ها وقرر عاديات أوكي سماحة قال شن عنق قولي كاتل بتي مقرسله مسوا سميحة صومان سميحة وقرسن لها مقرسله سبب لا قول كذا حق قرسن لها وقف قلبي ونكسن صح وقف ما شاء الله ما أرتق والله قف لدين كرمانيو أي صح وقع صح دون ولي ويكدنتي marka ado og ina amaanteeda ku ogtahay baa ku qadar saamay waa ku qaadanaha ku xalay hada gursan la malaa waa gursan la wallahi ku qadar shita cunno ku qadar shan ilaa 100 may dhasho waa ku qaadan la qofku wanaagiisa qalbigiisa la fiirso ay ala maasta ay soo ay saaxib soo dhow saaxib maana okay su'aasha ku diro waxay samaxa kan laba taanamo aad iyo aad okay shan cunug wata gurbe ka dalbatay ma gursaleen shan cunug hada reer la dagweeye markaas mayada guurtaas reer la dagweeye shan cunug wata waa garoob hada guur hadhiin waxa way reer la dagweeye markaas moogta ma shan cunug wata hada gurbe ka dalbatay maadaama la qabin hada jawaabteedu way caddahay macnaha waxa way maya way maya ma gursaleen no ay ala maasta ayo waa dhow saaxib okay su'aasha ku diro waxay samaxa kan laba taqanamo waa qanaa samaxa kan oo shan cunug wata ay gurka dalbatay ma gursaleen meesha ugu tagay maya ma guursan lahaa waa ka tegi lahaa sababto ay tahay in action cunug wadato inta geena waxa leedahay wax shita cunug baa ku diiday hadii ay wada lahayn waa gursan lahayn dabcan okay ay aad baa maasta saaso adaa mudan saaxib okay samaxa kan laba taqanamo aad iyo aad samaxa kan oo shan cunug wata guri ka dalbatay wakiilay waa ku qaadalaya ku qaadaleed sababto ay tahay qofku uu soo bandhigtay lagu madariyo waxa leedahay hore u gal wala waayo waa qof aad u qurux badan waa ku qaadaleen waayo waa qof aad u qurux badan ay aad u maasta sidoo kale walaal waan dhow walaal okay su'aasha ku diro waxay samaxa kan laba taqana waa aad iyo aad okay samaxa qana gabadha tiktoker shan cunug wata gurbe ka dalbatay wakiilay musa wax la diidi karo maaha walaal qof la diidi karo maaha ma sha Allah aad u qurux badan tahay qof laga tagi karana maaha qaadale shita cunug ku qaadale waan ku qaadan lahaa sabab dii waan ku qaadan lahaa aad u qurux badan tahay quruxdeeda ma ku qaadaleed mise wax kale ku qaadaleed waxa ku qaadaleed waxa ku qaadan lahaa horta ma sha Allah qurux badan marka koowaad marka labaadna dii waaba iska qaadan lahaa waan ku haystaa ha meel aan u tahay malaha ay aad maasta ay thank you soo waan dhawaay saaxib okay samaxa qal waqra samo samaxa qal aan garanaya shan cunug wata gurbe ka dalbatay wakiilen maswa samaxa hatta waan jeclahay shan cunug ayadoo sheegtay 20 haday dhashay taan ku qaadan la saaxib aan u imaaman la dawa gawar quruxsan oo diin loo ma sha Allah afsurande imaamadan ku tuuran la qofta u qalantaa Soomaa ha ayada maas samaxa waa ku wataa dheh thank you bro saaxib soo wada walaale okay samaxa qal loo taqanamo aad iyo aad samaxa qal shan cunug wata gurbe ka dalbatay ma gursanay iyadoo shan cunug wata may sabab de qof shan cunug soo dhashay Soomaa laakiin iyadoo gawar oo duuduwa ku qaadan lahaa shan cunug soo dhashay ma ay aad maas thank you bro waan dhawa saaxib okay samaxa qal loo taqanamo waa dhagtan ka maqlay maarta adiga waa maqalkeeda waan la socdaa okay shan cunug wata gurbe ka dalbatay wakiilay ma hebel hadii la dhahay hadii la kala general way kala duwan tahay naag haday 10 wadato haday 5 wadato
haddayba guur ku soo dalbato ta ugu fiican weeye midda keliga socota waxa ka fiican midda ilmaheeda wata sababtoo ilmaha aad dhalin adigana ku caawinhayo wey waa midda loo baahan yahayba waa ka aqbal waa zaid ma waa aqbal lah hay'ada maas sidoo kale waa maasanta saaxib soo dhow adoo brada okay su'aasha ku diray waxa samaxa qal waa taqaanaa yes samaxa qal shan cunug wata guur ka dalbatay guursanada su'aasha u tagay kulli goor Soomaaliyeed waaye dumar waaye ma fahanti shaman haday maanta tan wada guursan lahayn ma dhaafleen sababtu waxa waaye walaashii acmalomano marka goor fiican waaye goordan la yaqaan waaye aan oo magac maamusle waaye hadana marka aan ma cid ma waqti lahayn koos dumar waaye walaashii acmal waaye shan ma haday maanta tan wada ma dhaafleen Soomaaliya marka hada xaleeyo guursan la لازم أقولسن أنا ما شاء الله سؤال شو كودي حوي سمح قل لا تغنمه سمح قل يا شن عنقود تجور بكوس ما دقت مقرسله يعني هدا أيدي المقبتة مس أيدي عرّ لها مس زاد شن عروة تجور كادلبت ما ولا ما ها صوب قف شن عرّقة وعرّته كفير كلام سوا قف شن عرّقة وأروز زاد عرّته كفير سوا ممكن على هذا كوتر ولا ما أيدي كله بديت معاه لكن عرّ بدنا داود عروة كوتر عشان بكوتر ما وايز بس عنده هذا ما است إن شاء الله هذا هذا هو برادا أوكي سمح قل وقت أنا ما ها هذه سمح قل شن عنقود تجور كوس ما دقت كأقبل لين مسمى لا قلت له إذن ميجاشاي يا إذن ميجاش كوس ما دقت استقاني وقف هذيك أو كوس ما دقت أقوله أيه أوكي مكأقبل لين هذه يا وقرصن لاي سبب وقرأ ديو قفاتاس وقرأ ديو قفان دي لاي مكشنت بس كده في توم حتى قادر العمل توم حتى قادر لا وقرأ ديو قفا هذا ما است برا ثانك يو صاحب سلوك أي صاحب ودوي اوكي عشان كودي حوي سمح حق لو تقنما سيد سمح حق شن عنق تقول كاتل بتن كي ليد مش قلت نيو جبر Soomaaliyeed way duruuf qof kale ugu manacay waa ku qaadan lahaa saaxiib sababtoo ah hadii qof duruuf lagu manac Soomaaliya duruufta sheeg maxaa way ilmaha haysataa oo ilmaha ama qofka lagu manaco ilmaha dartood ma ugu dorleed ilmaha darteed macnaha ugu ma tagi lahayn ilmaha haystaa inaa dhaho kama qof kale kama doorsan lahaa waa ku qaadan lahaa saas leedahay hada ma asta ayo brada madan waa dhooha saaxiib okay samax xaq loo taqanamo وانا قانا اوكي سمح حق شن عنق هدي قول كاد دلب لهيد مقرسله قرسلا waa gabar Soomaaliyeed شن عنق wadata shanta cunug waa ku qaadan lahaa ku qaadan leed ay sababta u qaadan leed maxaa waa gabar yani qurux badan way ya يعني miya bas mismeelka kalima yani gabar waa gabar Soomaaliyeed labadii gabar Soomaaliyeed way tahay laakiin gabar shan cunug dhashay shanta cunug ceeb ma aha jirtaa ninka ragga ilmaha bariga ku anfacaan yani waxay ku taraan macquul noqon waxay ku qaban karaan ciyaalka noqon karaan lama yasi karo marka waxa leedahay ku guursan ku qaadan ay aad u maasta hay brother maasada waan dhawa bro okay magaca maxamed qadar okay maxamed waxa ku weydiinaya samax qal loo taqana ha in badan okay samax qal shan cunug wata agur ku badhigatay guursan aniga diyaar waa iska guursan lahaa gabar Soomaaliyeed oo way Soomaalimaha gabar shan cunug wadata waaye oo magaca bay ku leedahay waa artay baraha bulshada guriga ku soo badhigatay shan cunugna waa wadataa ma kiileed ha sababtuna waa ka rabaa labada waa kiilaa sababtoo waa gabar sharaf leh Soomaali sax marka gabar hadii diin leedahay shan cunug wadato oo ku qaadan lahaa sax ilmahaasna wixii mas'uuliyadooda waa qaadan lahaa aad u maasta sidoo kale bro magacay waa Nijibaalta اوكي نجيب حق وديها سمح حق لو تقنا ها وقنا سمح حق او شن عنق وتا ايا غور كاد البتم كيله ها وكيل ها وكيل صوت adiga nabiga kaleey salaatu wasalaam Aisha ayadoo ku weyn buu guursaday marka aniga saadirtay nabiga ana ku dayanay aan guursan lahaa ayadoo shan ilmo wadato ay aad u maasta ay kana wadaway brother اوكي سمح حق لو قال سمح aadiyad اوكي سمح حق لا شن عنق وتا غور بك كاسو بدغتay ma guursan leey والله أيضا شيء سأقول سومالي تم بدأ يسوي بندقته هذا ما قلته وقال أنا أيضا أم بكالنا هذا أيضا قول سومالي كم تسومان صح ما أيضا شو العلوي ولا ورطبنا هذا وده طبعا هذا وده كوي طبعا كده يا برادر والله أي صوب تأيش بس ما كيش أبغى نجا عرضه تاج كل أنت أركي أيوة فيلم وقبر لقادن كرو صح أنت أركي فيلم قبر لقادن كرو أنا ما أنا وجه أي صح سلوك ها ودوي اوكي سمح حق لو تقنمو ها waa qanabo اوكي سمح حق لو shan cunug wata guur ku soo badhigtay ma ka aqbal leh ها waan guursan lahaa samiix qaliya heli kara waan guursan lahaa sababtoo samiix qal waa gabar aad u fiican ayadoo haddaan iskaaba oo single ah jeclaawo sax marka shan cunug wata maadaama shan cunug wata ku soo aad ayadoo guurna ka soo badhigtay ma ka aqbal leh sababta oo aqbashan ka rabaa
sababta aqbalaya waxay tahay samiixa qal horta waa gabar sharaf leh ma fahmino صح marka waan ku qaadan lahaa buu waan ku qaadan lahaa mudidle 10 haday istaa ku qaadan lahaa aad oo mas ayaa buu aad dhow abo okay samaxa waa garan samo ha waa garanay okay samaxa qal oo shan cunug wata guur ku soo dalbatay guur ka dalbatay ma ku qaadan lahaa maya ya maya maxaa sabab gabadh weyn waay is older than me shan cunugna waa wadataa she's older than me I can't marry her ma guursan kara ha ma guursan lahaa ha okay aad oo mas haya soo dhawaado ma ku lahayd wandho walaal magacayga qadar aadan qadar waxa ku weydiiyaa samaxa qal waa taqaanaa saay si fiican okay samaxa qal oo shan cunug wadataa guur ku soo bandhigatay ma guursan lahayd mise waa meesha ugu tileen haddii lacag haysto waan guursan lahaa lacag ma had sidee taa shan cunug ku wadataa waan ku qaadan lahaa ya waan guursan lahaa sababtoo waxaan rabaa inaan noqdo caadi waa sheekhin caadi adi waan ku qaadan lahaa leadi waan guursan lahaa sabab iska qaadan loo rabo shan cunug wadataa sababta u qaato baa ka rabaa sababtoo maalinta ilmaheeda ka mid noqon lahaa habeenkina sida kale aad oo maasta aadaa mudan waa dhawaa saaxiib okay samaxa qal waa garan samo aad weyn okay shan cunug wadataa guur bay ka dalbatay ku qaadan lahayd meesha ugu tileen niyahow islaan shan cunug wadata aniga waxaa waaya fikir ahaantayda horta laba mid way noqonaysaa wax walbana waa heshiis ha ma idu ku soo badto waa la yaqaan gabarta magaca leh waa la yaqaanaa marka hadii ka soo shan cunug wadataa guri ka dalbatay ku qaadan lahayd mise waa ka meesha ka tagleen niyahow aniga horta wallaahi ani ahaan haddaan ku fikir aniga weligay naga ma guursan haddii waxaa la dhahay goroobna waxaa la dhahay nabigaaba u ducey marka horta intaadan goroob gaarin horta waxaa la dhahay waxaa ka wanaagsan intaa gabar aado gabar markaa soo aragta adiga ma guursan lahayd mise waa diiday labada baa labsa wallaahi kuma degdegeen guursan malada ha okay ayaad baa maasta ay sax soo dhow soo dhawaay bro okay samaxa qal waa taqaanaa samaxa qal shan cunug bay ka dalbatay guursan lahayd waa diyaar guursan lahayd sabab ya walaashii camal maxaa guursan lahaa walaal camal ma u guursan lahayd mise waa gabar Soomaaliyeed bro gabar Soomaaliyeed shan cunug wadataa ayaa soo fahmay waa fahansanahay ha waa guursan lahayd waa guursan lahayd bro ayaad oo mas waan dhawaado okay samaxa qal waa garan samo waan garanno samaxa qal shan cunug wadataa guur bay ku soo bandhigatay ma guursan lahayd mise meesha ugu tageen waan guursan lahaa sabab hoos dumar dumar waa badan yahay sababta ku guurista ka raacday qaasahan macnaha musaacannimo ku guuristay musaacaleeda xogaa jeebka qoyan hadii qab nooce qabka ugu waxa dumar waan jecel la fiirna mooye gabar oo shanacno wadatin qof kasta guursan kara ha wayna markay guri imaato wayna guursadano sasa guursanay xaasadan guursano ku aad oo maas thanks bro ay sax soo dhow oo dhawaa buu macaan okay samaxa qal waa taqaanaa waa ka sii zaid samaxa qal oo shan cunug wata guur bay ka dalbatay kii leed mise meesha u tagay ma guursan lahayn sabab waa daayarahay marka waxa leeyahay qof oo hadda garoob iyo wax hore u soo maray ma rabino waxaa rabaa wax aan qirkeyga oo ani anfacayo wax cusubno ayaad oo maas waa dhawahay